waxaan soo socday dhowr kiiloomitir si aan u soo gaaro tuuladan yar ee Giti ee ku taala dalka Rwanda waana halka ay ku nool yihiin labadan wiil ee lagu sii daayay cafiska madaxweynaha labadan wiil ee walaalaha ayaa lagu xukumay xabsi daayin balse haatan waa xor kadib markii uu cafis u fidiyay madaxweynaha waddankaasi Andre Bisamaza waa labada wiil ee walaalaha mid ka roon waxaa xabsiga lay diray 1992 waxaa la igu qaaday dembi inaan qof dilay noloshayda waxaan ka warwarsanaa maalin walba inaan berri nolol ku gaari doono wax walba ilaahay baad u daynaysaa waxaan sugayay maalinta qof wax daldalaa uu xadhigga isuri doono laakiin dawladda ayaa baabiisay xukunkii dilka waxaa la igu beddelay xabsi daa'in waa nafisayoo ilaahay baanu mahadnaqay way igu adkay inaan aamino markii la yidhi madaxweynaha ayaa cafis sameeyey xataa kuwa xabsi daa'inka lagu xukumay maalin walba waxaan u noolahay sidii qof ka baxsaday dil uu qarka u saaraa walaalkii Laurent oo isna xabsiga loo dhigay eedeymo la mid ah kuwaasi ayaa waxa uu la qiirooday kulankii ugu horeeyay ee uu la kulmay gabadhiisa waxaana markii Laurent loo taxaabay xabsiga ay gabadhiisu ahayd mid caloosha hooyadeed ku jirta xaaskiisuna waxay ahayd xaamil hal bila balse imika gabadhaasi waxay jirtaa 26 sano markii aan magacayga ka maqlay inuu ka mid ahaa dadkii la cafiyey waan aamini waaye aad ayaan u farxay dhibaatada keli ah ee aan la kulmay waxay ahayd inay caqabad igu noqotay markii aan arkay xaaskayga oo 2 cunug u dhashay nin kale kadib tijaabo dhiig ayaan isku samaynay si aan mar kale u wada noolaano natiijada markii ay soo baxday waxay ahayd mid wanaagsan waxaana go'aansaday inaan cafiyo sababtoo ah aniga xitaa dawladda way iga cafisay dembiyadii aan geystay xaaskiisa ayaa waxay sheegtay inaysan u furnayn waddo kale maadaama ay wajahday dhibaatooyin badan intii uu saygeeda ku jiray xabsiga waxay la tahay inaan weligay nolol la qaybsanin waxaan wada noolayn hal bil oo keliya bishaasina waxaan noqday uur waxaana la kulmay dhibaatooyin badan dhulkii aan lahayn oo dhan waa la gaday si magdhow loo siiyo qoysaskii ay waxyeelladu soo gaartay haa waan burburiyey guurkeennii waxaana i dumaalay walaalkii oon hadda 2 cunug u hayo si aan baaqi ugu sii ahaado qoyskan ayaan sidaasi u sameeyey waxaan codsanayaa cafis cafiska madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame uu fidiyay dadkan ayaa waxaa sidoo kale ka faa'iideystay 7 qof oo kale oo ku xukunna xabsi daa'in iyo kuwa kale oo galay dambi aan sidaasi u sii weyneyn